بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ميل كستو joogtaan baddaawadayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyadeennii doodaha ahaa ee aynu ku qaban jirnay xarunta telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madashan aynu ku sugannahay waa xaruntii wasaaradda warfaafinta barxaddeedii caawa iyo kulankeenna waxa uu daaran yahay dood ku saabsan doorka ay jaamacadaha kala duwan ee dalku ay ku leeyihiin shaqo abuurista haddii ay tahay dhalinyarada iyo guud ahaanba shaqo abuurka kale sida halkan idinka muuqata jaamacadahaasi kala duwan waxaa kow ka ah oo dhinacaygan fadhiya isla markaana jaamacadda new generation uga qayb qaadanaya doodan amba banalkan muumin sheekh cumar oo ah gudoomiye ku-xigeenka qaybta waxbarashada ee jaamacadda new generation dhanka shishe waxaa ka xiga brofesor axmed qoolcadde oo isaguna ka tirsan ambaan idhaahda aqoon-yahanka dalka isla markaana ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta xidhiidhka dadweynaha amba b r-ka ee jaamacadda hargeysa dhinacaygan haddii aan u soo laabto waxaa fadhiya mukhtaar xaaji maxamuud faarax oo isaguna ah hormuudka kulliyadda qaybta arrimaha ardayda ee jaamacadda armas waxaa ku sii xiga fuwaad cabdirashiid oo ah isaguna agaasimaha isgaadhsiinta iyo xidhiidhka ee jaamacadda golis baashaa koonaha waxaa xiga agaasime maxamed bide oo isaguna ah agaasimaha shaqo abuurka ee wasaaradda shaqogelinta wasaaradda arrimaha qoyska iyo shaqogelinta ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad daawadayaal ku soo dhawaada doodeenna waxaan ku horreysiin doonaa muumin oo dhinacaygan fadhiya jaamacadda new generation muumin oo waxaad haysataa 2 daqiiqo ood ku soo koobi kartid bal jaamacadaha iyo shaqo abuurka waxa iska khuseeya marka horeba aad buu mahadsan yahay agaasimuhu run ahaantii shaqo la'aanta oo mawduuceenan uu ku saabsanaan doono oo dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee run ahaantii iyo doorka jaamacadu ay ka ciyaari karaan shaqalaantu waa mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maanta caalamka ka jira waxaana la sheegaa run ahaantii 205 milyan oo qof inay shaqo la'aan ay yihiin adduunyada guud ahaanba inkasta oo marka la eego tirada bulshada adduunka ku nool oo iyaduna lagu qiyaaso 8 bilyan ay noqon karto 5% meelaha ay ku qiyaasto hay'adda ILO ama International Labour Organization run ahaantii waa mushkilad aan waddankeena qura ku koobnayn laakiin si guud markaynu uga yar carabaabno caalamkao dhan ka jirta shaqo la'aanta waxaa runaantii aynu odhan karnaa dhowr qaybood bay iskugu jirtaa waxaa jirta underemployment oo aynu naqaano dadkii oo shaqo haysta laakiin aanay ku filnayn mushaharaadka ay qaadanayaan ama aan shaqo badan qaban iyagoo qaban karaya shaqo fara badan iyagoo qaban karaya waxaa kaloo jirta frictional unemployment oo iyaduna aynu naqaano shaqo la'aanta nooc ka mida oo runaantii muddo gaaban qofku uu shaqo la'aanayo sida tusaalehaan waqtiyadii coronavirusku adduunyada ka dhacay oo kale dad badan baa shaqo waayey laakiin markii lagu soo noqday goobaha shaqooyinka dadkii shaqooyinkii way iskaga soo noqdeen iyadana waxaynu naqaanaa nooc shaqo la'aanta ka mid oo frictional unemployment la yidhaahdo structural unemployment baa iyaduna jirta oo aynu iyadana noqonaysa shaqo la'aan noocan aynu ka hadlano ee run ahaantii waddankeena ku badan oo qofkii oo muddo fara badan oo ilaa sanad ku dhow shaqo la'aan marka uu noqdo waxaynu naqaanaa structural unemployment baynu naqaanaa run ahaantii adduunyadana aad bay saameyn ugu leedahay siyaabo fara badan baa la odhan karaa way keenaan oo ay ka mid tahay kobcii bulshadu oo ay ka mid tahay run ahaantii xirfaddii oo yar ama lack of skill waxaynu naqaano oo xirfaddii baa yar baynu odhan karnaa iyadoo laga yaabo inay jiraan dad fara badan oo wax bartay haddana waxaad moodaa xirfadda inay ku yar tahay oo waxaa jirta waxbarashadu qaybo kala duwan bay leedahay mid waxa weeyaan waxbarashadan caadiga ee acquired knowledge kaanu naqaano ee muddada dheer qaadata ee secondary-ga iyo jaamacadda aynu soo gelano midna waxa weeyaan xirfadaha gaagaaban marka xirfadaha gaagaaban ayaad moodaa inay ka fursad badan yihiin oo ay yihiin kuwa lagu shaqeeyo dadkeenuna waxaad moodaa xirfadaha gaagaaban inaanay inta badan aanay jeclayn ama aanay xoogga saarin ama aanay qaarkood moodinba inay runaantii ay ku jirto marka waana meelaha ugu badan ee laga shaqayn karayo runaantii shaqo badan laga heli karayo haddaad u fiirsatid inanka gaadhiga maydha gaari la maydho waa shaqooyin aan xirfad badan u baahnayn oo runaantii inanka gaariga maydha haddaad u fiirsatid maalintii $3 buu halka gaari ku maydhaa haddii uu 10 gaari maydho $30 buu maalintii runaantii ninkaasi soo gala haddii bil loogu dhufto mushaharka waa $900 marka $900 waxaa laga yaabaa qofkii wax bartay lacagtii uu ku shaqayn lahaa xafiiska oo ka qaadan lahaa inay aad uga yar tahay waayo ama 200 ama 300 laga yaabo in shaqooyinka average-ka badana uu qaadan lahaa marka horta waxa muhiim inaynu fahanno in xirfaddu ay tahay waxa adduunyada badankeeda lagaga shaqeeyo ee la barto run ahaantii haddaan u yimaado
qaababka ay jaamacaduhu wax uga qaban karaan anigoo soo koobaya waxaa ka mid a in run ahaantii la kordhiyo entrepreneurial skillska ama xirfadahan qofka la barayo halabuurka ganacsiga la barayo in la kordhiyo oo aad moodid imika in jaamacadaha badankoodu ay leeyihiin iyagoo maadaahan muumin aad iyo aad buu mahadsan yahay garabkayga waxaa fadhiya mukhtaar xaaji oo isaguna jaamacadda armisa mukhtaar isla su-aashaasi bal jaamacadaha iyo shaqa la'aanta amba shaqa abuurka xidhiidhka ka dhexeeya adigoo dul istaagaya dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu salaan kadib haddaan ku soo dhowaado su-aasha uu agaasimuhuna weydiiyey ee ah doorka ay ku leeyihiin jaamacaduhu shaqa abuurka bulshada ama dhallinyarada horta run ahaantii waynu isla wada ognahay in ay tahay shaqa la'aantu aafo guud ama aafo qaran oo haysata si guud adduunyada gaar ahaanba waddankeenna somalilan jaamacaduhu inta badan waxyaabaha ay soo saarayaan ha noqoto aqoonta ama ha noqoto skilliska qayb weyn bay ka tahay shaqa abuurka deenna somalilan sababtoo ah jaamacaduhu waa xarunta ay ka soo baxaan dhammaanba cududda shaqaale ee ummaddeenna jaamacaduhu haddaba jaamacad kastaa boolicy gaaray leedahay oo ay ku hagto shaqaalaha ama ardayda ka baxda ee iyada barodhageeda ah ay ku shaqaalaysiiso inta badan jaamacaduhu doorka ay ku leeyihiin waxaa ka mid a haddaan soo qaaday iminka gaar ahaan jaamacaddeedoo kale ardayga hard skillskan la barayo ee subject matterka ee koorsooyinka loo dhigayo waxaanu u raacinaa job readiness training wax la yidhaahdo oo waxaan leenahay training and consultant la yidhaahdo doorka ay ku leeyihiin waxa weeyaan iyo xidhiidhka ka dhexeeya shaqada qofku ama ardaygu halka wax uu ka soo baranayo ama laga soo qalabaynaya ee uu ka soo qaadanayo aqoontii uu ku shaqo tegi lahaa horta waa jaamacadu horta iyagaa shaqaalaha soo saara waa doorka koowaad ay ku leeyihiin doorka labaad ay ku leeyihiin waxa weeyaan jaamacaduhu inta badan xidhiidh bay la leeyihiin bartinaris fara badan oo ay ka mid yihiin ama local NGO ha noqdaan ama international NGO ha noqdaan ama UN NGO ha noqdaan ama governmental institutionska ama private sectorka dee ha noqdaane dabcan bartinariskana jaamacaduhu way u fudaydiyaan arday badan inay ka qayb galaan cududda shaqaalaha ama cududda shaqada iyo shaqaalaha marka laga yimaado aqoonta iyo xirfadda ay ku soo qalabaynayaan waa fududeeyaal u fudaydiya ardayga dariiqii uu mari lahaa shaqada qodobka saddexaad doorka ay ku leeyihiin jaamacaduhu shaqa abuurka waxaa ka mid a in tusaale ahaan ardaydii ay fahansiiyaan iyaga laftoodu qaabkii waxay u raadsan lahaayeen oo ardaygii yacnii kooraskan la barayo in loo raaciyo sidaan horeba u sheegay wax u fudaydiya inuu shaqadii raadsan karo cvgii qoran karo oo fiilkan uu bartay wixii relevant la ahaa ama institutionadii ku shaqaynayey iyada lafteeda uu tegi karo markaa runaantii anoo soo koobaya waxaan isleeyahay doorkaasi ku leeyihin aad iyo aad buu mahadsan yahay mukhtaar xaaji isla su-aasha uun si aynu uga faa'iidaysano jaamacadda golis iyaguna ay khibradooda iyo aqoontooda iyo xidhiidhka ka dhexeeya ardayga iyo shaqa abuurka runtii shaqa la'aantu waa dhibaato sidaa la sheegay bulshooyinka kala duwan ee adduunka oo dhan haysata runtiina waxyaabo fara badan baa laga yaabaa inay keenaan laakiin haddaan kusoo dhawaado su-aasha anigoo waqtiga ka faa'iidaysanaya doorka jaamacaduhu ay ka qaadan karayaan shaqa abuurka waxa weeye kow cilmi baadhis inay ka sameeyaan maxaa sababaya in dadkani ay bilaa shaqo noqdaan ma xirfad la'aan baa jirta ma wixii jaamacadaha lagu qaadanayay baanay waxba ka jirin ma dadkanaan u diyaarsanay inay shaqeeyaan waa in la ogaado dhibaatada jirta ee ugu horeysa marka doorka koowaad ee ay ka qaadan karayaan waa in wixii la ogaado markaasaa xal la keeni karayaa doorka labaad ee jaamacaduhu ka qaadan karayaan waxa weeye inay ardaydii u diyaariyaan inay la iman karayaan fikrado cusub oo ay ku hal abuuri karayaan shaqooyin isla markaana ay isku diyaarin karayaan jaamacaduhu doorka ka qaadan karayaan ee positive-ka wanaagsan waxaa ka mid a inay diyaariyaan arday xirfad leh xirfadaasi oo ah xirfad wax ku oola suuqana looga baahan yahay ayay diyaarin karayaan soo saari karayaan waxay jaamacaduhu door ku yeelan karayaan inay la shaqeeyaan shirkadaha kala duwan ee loo shaqeeyaha institutionska dowladda hay-adaha isla markaana ay ogaadaan baahiyaha jira iyo in ay ogaadaan waxaan looga baahan yahay shirkadaha si ay ardaydii u kabaan traydna dheeraada u siiyaan xirfadahooga iyo waxa looga baahan yahay u dhisaan waxay ka qaadan karayaan inay brograamyo diyaariyaan
programyadaasi ay bixinayaan ay ku saleeyaan waaqica waddanka iyo baahiyaha kala duwan ee ka jira waddanka. jaamacaduhu waxay qayb weyn ka qaadan karayaan sidoo kale inay dhalinyarta ay u ababiyaan sidii inay la iman karayaan hal abuur oo ay wax abuuri karayaan, ganacsi cusub samayn karayaan, iyagoo siinaya caawimaad dhinaca talooyinka, iyagoo siinaya caawimaad dhinaca dhaqaalaha, iyagoo siinaya tooliska ay u baahnaayeen, isla markaana suuqgeyntii kala qayb qaadanaya. ganacsiyada kala duwan ee ay la sameeyeen ee ay ka caawiyeenna waxay hadhow tolo ka caawinaysaa inay la yimaadaan hal abuur shaqayn karayo oo suuqii ka shaqayn karaya. sidoo kale jaamacaduhu waxay ka qayb qaadan karayaan in ay ardayda u qabtaan platforms kala duwan oo ay fikradooga kusoo bandhigayaan, ay ugu yeedhaan maalgeliyayaal kala duwan oo dhinacii dowladda iyo dhinacii kale organizationskiiba leh ayay ka qayb qaadan karayaan, waxaana fududayn karayaan inay problemska yareeyaan. waxay samayn karayaan inay usoo casuumaan dadka kala duwan ee ganacsiyadooda shaqooyinkoodu guulaysteen ayay usoo casuumi karayaan si ay uga bartaan casharo kala duwan. waxay u samayn karayaan oo u diyaarin karayaan ardaydaasi inay noqdaan arday fursadda markaba u diyaarsan, oo markay ka baxaan jaamacaddii shaqadii markay timaado waxa ka horeeya waxa weeye adigu ma diyaarsan tahay, diyaar ma u tahay inaad shaqadan qabato, xirfadeedii ma leedahay, aqoonteedii ma leedahay, markaasaad buuxin karaysaa gaabka jira. isla markaana mar kastood xirfad yeelato waa mar kastoo adiga lagu baahanayo laguna soo raadinayo. waxaa kaloo loo baahan yahay si guud haddaan soo koobo waqtiga koleyna haya, jaamacadu waxaan odhan karayaa waa meesha wax laga barto, waa meesha wax lagu dhex ikhtiraco, waxa weeye meesha fursadaha ardayda iyo dadka ka baxaya loogu abuuro, isla markaana dadka kale xoogsatada ee suuqa jooga looga abuuri lahaa shaqooyin. markaa door aad iyo aad iyo aad u weyn oo dowladdu keliya tiini uu kaga horeyso ayay ku leeyihiin jaamacaduhu, iyagaana dadkii soo saaraya, iyagaana ogaanayo baadhaya baahidii ka jirtay waddanka. marka aad baa u mahadsantihi. isla su-aashaasi waxaan weydiin doonaa profesor axmed qoolcadde oo isaguna jaamacadda hargeysa b r kastan hore idinku soo sheegay. waxaan uga mahadnaqayaa agaasimaha tv-ga qaranka soo dhoweynta iyo aragtidan aragnay mandarka amba horumarka laga gaadhay gudaha tv-ga qaranka iyo radio hargeysa halkan goobtan aynu joogno oo uu ka muuqdo horumar aad iyo aad u qiimo badan. jaamacadda qaranku waa jaamacadda hargeysa, waa waa mugga aqoonta iyo muraayadda qaranka. waxaanu soo gaadhnay stage aanu ka gudubno oo qura markii hore waxaanu ahayn shaqadayadu inaanu gudbino cilmi, laakiin hadda maxaan ku rahdaay haddaan afqalaad ku sheego waa transfer of knowledge. laakiin iminka inaanu shaqo abuurka ka qayb qaadanno ayaanu soo gaadhnay oo aanu lahaano institute u gaara oo meeleeya tirayngareeya ardaydayadu intaanay jaamacadda ka bixin, siba muxuu ahaa qolada saddexaad iyo qolada baxaysa sanad walba. runtii waxaana loogu imanayaa magaca meelaysay 950 arday oo aan midna la soo celin, kulligoodna imaka wada shaqeeya tii oo ay ku xidhan tahay himilada ardayga iyo runtii ardaygu siduu u soo jeedo. mar walba diyaar waxaan u nahay waalidiinta iyo ardaydooda baxaysa in ay kala baxaan cilmi, ayaanu inta badan ku dadaalaa. waxaanu maraynaa stage industrygu amba employersku amba shaqa bixiyayaashu ay nala soo xidhiidhaan oo ay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa intaasoo arday inaanu interview ka qaadno oo dabeetana inta u baahan yihiin ay ka qaataan. waanay socotaa ilaahay mahaddii. su-aasha labaad waxaynu iskaga soo koobi doonaa un haddii ilaahay ka dhigo jaamacadaha iminkasta halkaa u fadhiya brogaramadooda iyo marketku ma iswaafaqsan yihin. intaynan haddaba su-aashaasi u gelin waxaan markaan siin doonaa bal suu xaaladda guud maadaama xoog badan uu hayo agaasimaha shaqa abuurka wasaaradda shaqagelintu waanu dhex gelin doono dowdeenna haddii ilaahay ka dhigo, mar walbana nagala socon doono wixii taliyo tusaalaha isagu. agaasime bal waxaad xog naga siisaa dadka ina daawanaya iyo intayna halkan fadhida cilmi baadhista ku jirtaba, bal mawduucan shaqa abuurka iyo shaqagelinta guud ahaan dalka xaaladda uu maanta ku jiro iyo siduu yahay iyo heerkay ka taagan. runtii saynu wada ogsoonnahay dalkeennu maalinba marxalad buu soo maray. waxaynu nahay dal 30 jirsaday oo aan ictiraaf helin, maalinba meel taagnaa,
xarumihiisa dowladdu maalinba ay meel taagnaayeen jaamacadihiisuna marba meel ay marayeen runtii wakhtigan aynu joogno waxaan aaminsannahay ka dowlad ahaan wakhtiyada ugu fiican inaynu ku jirro xagga kobca aqoonta hadday tahay oo jaamacadaha waddankeenu maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayaan iyagoo bixinaya kuliyado iyo xirfado kala duwan dhanka kale marka laga eego xarumaheena dowladda ama wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha shaqo abuurka iyo shaqo la'aanta ama shaqo gelintaba iyana ay marba marxalad soo taagnaayeen runtii ka dowlad ahaan ama ka wasaarad ahaan 5 sano ugu dambeysay ee xukuumaddan madaxweyne muuse biixi cabdi jirtay tallaabooyin badan baa laga qaaday arrimaha shaqo abuurka ee ugu horeyso marka laga hadlayo caqabad jirta ugu horeyn waxa loo baahan yahay siyaasado ama xeerar yareeya ama haga wasaaradda shaqo gelintu sanadihii ugu dambeeyay waxay samaysay siyaasado kala duwan oo la xidhiidha shaqo abuurka sida siyaasadda shaqo abuurka heerka qaran national employment policy sida siyaasadda shaqo carbinta heerka qaran national internship policy oo runtii labaduba ay yihiin siyaasadaha jihaynaya arrimaha shaqo abuurka haddii ahaan lahayd dhalinyartan kala duwan ee jaamacadaha ka soo baxay oo ah cududda ugu weyn ee maanta dalkani uu ku faanayo oo ay jaamacadahan diyaarsani soo saarayaan sidoo kale intii shaqo qaran ay soo baxday runtii iyadana waxay noqotay meel ay ku yaraato shaqo la'aanta waddanka ka jirta ama xaruntii haysa intaa markaan ka soo gudubno siyaasadahaasi ama xeerarka ah waxay hagayaan dhalinyarta bal suuqa shaqada iyo fursadaha yaalla iyo qaabkan u baahannahay inaynu ku yareyno shaqo la'aanta waddanka sidoo kale dowladdu waxay xoogga saaraysaa weliba insha allah rajayna sanadkan gudihiisa inay noo dhammaato in la qabto national labor survey waddanka dhan laga sameeyo si aynu u ogaano bal waddankeenna maxaa suuqa shaqada yaalla aynu isu waafajinno ardaygan jaamacadda ka soo baxaya xirfad noocee buu u baahan yahay inuu ku qalabaysnaado suuqa shaqada usoo gala isagoo diyaarsan sidoo kale in xoogga la saaro waxaa loo yaqaano centers jaamacadaha dhexdooda laga furo ama guud ahaan gobollada dalka oo dhan laga furo oo ardaygu marka uu kulliyad dhammaysto arday diyaarsan suuqa shaqada u diyaarsan fahansan suuqa wax kaga horeeya soft skills buuxana sita jaamacadu ku soo daayaan marka iskaashiga buuxa ee dhex mari doona jaamacadaha iyo dowladda waxay keenaysaa inay yaraato shaqo la'aanteennii waddanka ka jirtay aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimaha shaqo abuurka ee wasaaradda shaqogelinta maxamed su-aasha labaad waxaan doonayaa jaamacad kastaaba bal in ay siday brogaraamkayga amba siyaasadda ay ka leedahay waa su-aasha aynu doonayno in aynu ku ogaano idinkuna su-aalaha marna uga faa'iidaysan doonin dhegaysigiina jaamacadaha bal siyaasadda ay jaamacad kastaaba ka leedahay u gaarka shaqo abuurka iyo wixii midhadhale ay kala kulantay marka waxaan ku horraysiin doonaa jaamacadda armas mukhtaar xaaji maxamuud mukhtaar waxaad ii dul istaagay oo keliya huun jaamacadda armas siyaasad nooceeya ayay ka leedahay shaqo abuurka brogaraamada ay bixisaa ma waafaqsan yihiin marketka oo kuwa wax ka taraya shaqo abuurka ma yihiin horta run ahaantii jaamacadda armas saad ka war haysan waxay ka mid tahay jaamacaddii ugu horreeyay waddanka laga furay gaar ahaan jaamacadaha brivatiska ardayda 3 qaybood baan u kala qaadanaa ama aan uga qayb qaadanaa shaqo abuurka ardayda ugu horreyn ardaygan kooraska la siinayo ama fiilkan la siinayo waxaan u raacinaa training ah job readiness training ama career development inaan qofka u carbino inuu shaqo raadsan karo tusaale ahaan qofkii la baro inuu CV qoran karo report writing skillska la baro computer skillska la qoro communication skillska la baro dabcan marka intaan ardaygii u dhammaystirno ee ardaygii uu qalin jabiyo halkaa kagama hadhnee ardayda honoriska ah ee ugu sarsareeya kulliyadaha haddii markaa ay baahi shaqo ama boosisha ka bannaan jaamacadda ay jirto jaamacadda way la hadhaa ardayda iyadoo ay soo saartay iyadoo kalsooni ka qabta ee ugu sarreeyey way la hadhaa halka shaqo abuur bay ka samaysaa sidoo kale internshipka ama intershipka ardayda jaamacadda ka baxday waxay soo xiraystaan CV-yo ay ku dalbanayaan inay shaqo raadsadaan ama ay jaamacadda ka shaqo galaan marka ay jaamacaddu CV-googa eegto ama poolinka ay samaysa ay eegto intershipka waanu qaadanaa annagoo u eegayna baahida markaa jirta iyo sida ardaygan takhasuska uu bartay uu relevant u leeyahay positionka markaa ka bannaan internshipku waa 3 bilood 3 bilood marka uu dhammaysto iyadoo internshipku marka hore wuxuu ahaa merit based oo ardaygan honoriskiisa dhibcaha loo eegayay
ardaygu markuu internshipka uu dhammaysto haddana performance based baa la sameeya haddii performancega jaamacaddu ay ku qanacdo position bannaan oo permanent staff loo qaadanayaana uu jiro jaamacaddu way tixgelisaayo way qaadataa xaggaas waa xagga internalka external internshipna jaamacaddu way samaysaa oo waxay ardayga la raadisaa haddii tusaale ahaan fursad ay uga dhex weydo in partnershipka ay xidhiidhka la leedahay ha ahaato local NGO ama international NGO ama UN NGO ama governmental institutionskaba ha ahaatee jaamacaddu waxay u diyaarisaa ardayga inay la raadiso goob uu ku tababarto iyadoo horena loogu sii carbiyey xirfaddii uu ku raadsan lahaa shaqada su-aashaadi weydiisay ahayd kulliyadaha ay jaamacaddu bixiso relevant ma leeyihiin suuqa shaqada ha programyada yes jaamacaddu horta inta badan social science-ka bixisaa natural science-ku aad buu noogu yaryahay social science-ka ay bixiso waxaa ka mid a tusaale ahaan accounting-kii relevant buu leeyahay suuqa shaqada ICT-da way bixisaa jaamacaddu relevant buu leeyahay meelo badan oo maanta meelaha ugu muhiimsanna way ka shaqeeyaan brodhaga jaamacadda ka soo baxay jaamacaddu waxay bixisaa sidoo kale kulliyadahan iminka inagu cusub ay bulshadan la soo qabsanayso sida social worka HR-ka business management-ka sidoo kale waxay bixisaa xagga engineering-ka fiil aad u runaantii yar oo waddanka marka la joogo oo ah urban design and development ama architectural engineering naqshadaynta ama sarfeeyinka runaantii in badan oo ka mid a waddankuna way yacni mahadiyeen ama shirkado badan shaqaalihii ama ardaydii halkaa ka soo baxday waxaanu xidhiidh ama iskaashi ka yeelanay jaamacadda hargeysa iyo dhowr jaamacadood oo kale waxa la yidhahdo employability skill development oo ardayda honoriska ah ee ugu sarreeya inaan tusaale ahaan tababarnay kadibna shaqo lala raadiyey qaar badanna ay guulaysteen muumin baan u gudbi doonaa oo jaamacadda new generation isaguna ah muumin bal jaamacadda new generation programmadeedu sida u waafaqsan yihiin marketka amba waxaa jaamacadaha kala dheertihiin aad isleedahay waad credit aad leedihiin ayaad noo dul istaagi doontaa adigoo soo koobaya runaantii barnaamijyada jaamacadda ka baxa waxaynu odhan karanaa way la jaan qaadayaan suuqa weliba inagoon kale wax badanba kala qaadqaadayn jaamacadaha badankooda barnaamijyada ka baxa suuqa way la jaan qaadi karaan laakiin tusaale ganacsigoo kale waa fiilalka jaamacaddu ay bixiso shaqooyinka ugu badan ee maanta lagu shaqeeyana waa ganacsiga oo dee meherado aad u badan baa mar kasta la furaa ganacsiga marka la baranay qaybihii kala duwanaaba uu leeyahay xisaabaadkii suuqgeyntii maamulkii qaybihii kala duwanaa ee ganacsiga lagaga shaqaynayay qaybaha arrimaha bulshada laftirkooda dee ururadii iyo hay-adihii dhammaantood way ku shaqeeyaan oo duwan oo arrimaha bulshada ah ayaaba run ahaantii ay jaamacaddu bixisaa qaybaha health scienceska oo iyaguna qaybo badan leh jaamacadda iyo jaamacadaha kaleba run ahaantii way bixiyaan laakiin wuxuunbaa yara muhiim inay yara dul istaagno number intee leeg baa loo baahan oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa marketkii in ay soo galaan 4,000 oo arday oo qaybaha kala duwan baratay laakiin waxaa laga yaabaa marketka in looga baahdo in yaroo ka mida oo 1,000 ka mida laga yaabaa inay shaqooyinkaa looga baahdo intii kale markaa maxay noqonaysaa intii kale waa xirfado oo waa skills waana waxyaabaha aadka loogu shaqeeyo oo inaga aragnayo dadka ajaanibkii noo yimaada inta ugu badan ama decorationkii ha noqoto ama ha noqoto farsamadii gacanta qaybaheedii kala duwanaa shaqooyinkaasaa aad loogu shaqeeya adduunyadana horu martayna waa sidaasoo kale uunu shaqooyinka u badan in lagu shaqeeya waa shaqooyinkaa skillska xirfadaha u badan anigoo aad u soo yar koobaya barnaamijka aad baan u daraasadaynay run ahaantii waxaanu u diyaarinaynaa haddii ilaahay nala garab qabto inaanu dhismo gooniya u dhisno qaybta xirfadda lagu barto oo run ahaantii qalabayntiisiina leh run ahaantii hawl badan bay u baahan tahay laakiin waxaa imika noo hirgalay in dhulkii aan u qorshaynay oo run ahaantii aan u diyaarnay dhul gooniya waxaan ugu talagalnay haddii ilaahay qaybtaa nagu guuleeyo ama nala garab qabto inaanu samayno dhismo gooniya oo ka baxsan waxbarashadan caadiga ah ee jaamacaddu ay bixiso iyo jaamacadaha kaleba oo isagu u gaara qaybaha farsamada gacanta ee xirfadaha gaagaaban u gaara oo run ahaantii iyaduna dee dhaqaalo badan iyo culays badan u baahan laakiin waxaan rajeynayaa in ilaahay nala qaban doono haddii ilaahay idhaahdo marka si guud markaan u dhigo barnaamijyada jaamacaduhu ay bixiyaan badankooda suuqa waa looga baahan yahay laakiin nambar badan ayaa dibaddii imanaya oo nambarkii loo baahnaa iyo waxa kala badnaanaya iyo run ahaantii intaa badanna waxay ku maqan tahay waa xirfadihii gaagaabnaa ee lagu shaqayn lahaa ee shaqooyinka u badani ay run ahaantii ay ku maqan yihiin haddaan aad u soo koobo jaamacadda gelis haddaynu toos u gallo su-aasha programmiska markay bilaabayso iskama bilowdo waxaanan ku siinayaa facts
ama xaqiiqooyin baan ku siinayaa doctor siciid axmed xasan markii uu aasaasayey jaamacaddan golis 2004 oo iminka jaamacaddu 20 sannadood bay jirtaa sanadkan ayaa la xusi doonaa haddii ilaahay idhaahdo 20 guuradeedii wuxuu ku bilaabay haddaad dib ugu noqoto haddaad doonaysa inaad ogaato jaamacaddani sababta loo aasaasay waxaa lagu noqdaa taariikhdeeda iyo kuliyadaha kala duwan waqtiyaday furaysay iyo marketka wixii looga baahnaa wuxuu ku bilaabay doctor siciid axmed xasan inuu tababara siiyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan booliska ayaa lagu bilaabay jaamacaddan waayo boolisku wuxuu u baahnaa waqtigaa baahi taagan bay ahayd waxay u baahnaa in aqoon ahaan iyo xirfad ahaan in la dhiso sidii bulshada ugu adeegaya la baro in laga baro skillska kala duwan ee basic skillska ay u baahan yihiin hadday tahay computerada say u isticmaalayaan hadday tahay shuruucda hadday tahay akhlaaqiyaadka iyo waxyaabaha la midka ah laba waxaa la bilaabay civil engineeringa oo runtii isagana markii la bilaabayay waddankeennu wuxuu u baahnaa in la helo waddooyin wuxuu u baahnaa in la helo bridgeyo wuxuu u baahnaa in dhismayaashii kala duwanaaye waqtigaasi ay dhisayeen qolyihii inta badan kusoo dhex jiray foormaanada ahaa oo runtii dee waddanka wax badan iyaga laftirooga ugu soo taray ayuu doonayay in magaranaysaayey la helo dad dhisi karaya dhismayaal casriya oo looga baahan yahay maantana engineerskii kala duwanaa ee jaamacaddu soo saartay fooqyada aad aragteen ee runtii waddankeenna biriijyada iyo waddooyinka kala duwan bay dhiseen soo soco waxaa sidoo kale la bilaabay telecommunication engineeringkii oo runtii waqtigii isgaadhsiinteennu ay hana qaaday dhinacii teknolojiyadda loo baahnaa bay ahayd waxaa garab socday dhinacii businesska iyo dhaqaalaha iyo xisaabaadka iyo sidoo kale i t-gii iyo teknolojiyadii baa isaguna garab socday oo iyadana baahi weyn runtii waddanku u qabay in businessyo cusub la sameeyo in dadka dhaqaale ahaan la koriyo in xirfad ahaan la koriyo in teknolojiyadda ay la jaan qaadi karayaan waxaa kaloo berber socday oo aan facts ahaan aan ku sheegi karaya waxa weeye kuliyadaha engineeringa gaar ahaan kuliyadda geologyga waxaanu nahay jaamacadda keliyata ee bixisa cilmiga dhulka iyo khayraadka biyaha waa aqoon loo baahan yahay runtii loogana baahan yahay waddankeenna waayo waxaan u baahan yahay macdantii la soo baxno waxaan u baahannahay dhulka khayraadkiisa inaan ogaano biyaha beelaha laga helay inaan ogaano in u baahannahay iyo sidaan ula soo bixi lahayn waana baahiyo taagan runtii waana kuliyadaha inta badan xoogga la saaro sidoo kale dhinacii socialka sharcigii iyo kuliyadaha kala duwan ee faraha badan ee dhinacii caafimaadka oo kale ayaa iyaduna kusoo xigtay dhinacii civil engineering oo garab socotay oo uu dictoorku aasaasay iyo isagoo siyaasaddiisa lagu shaqaynayo waxyaabaha kale aan runtii inta badan samayno soo qaadan karaya waxaa ka mid ah marka laga yimaado waxyaabahaan samayno inaan ardayga xirfadaha ka dhisno xirfaduhu waa laba waa hard skills ama technical skills iyo soft skills axmed qulcade profesore jaamacadda hargeysa iyo waxyaabaha ay dheer tahay jaamacadaha kale xagga shaqa abuurka qodobka jaamacadda hargeysa markaan le ciidankamada dhalasho dadweynaha leh qarankaa leh qof qurih ma laha ta ugu jaban baanu nahay lacagta ugu yar wax ku bartaa ardayda marka ardaydeedu way ka fara badan yihiin jaamacadaha kale inta ku jirta ugu almost waxaanu haynaa 8,000 oo arday oo iminka ay habluhu ugu ka badan yihiin inamada waxa weeyaan runta marka loo noqdo ardayda xagga engineeringka amba muhandisiinta waxaanu gaadhnaa 5 sannadood ardaygu inuu jaamacadda hargeysa ku dhammaystaa waxaanu soo saarnaa sanad walba dhakhtarro la soo hufay oo la soo proof gareeyey oo qofka uu naftiisa ku aamini karo waxay ku dhacaan marka ay graduate gareebayaan 7 sannadood ka dambow waxay ku dhacaan hal wax ka yar amba hal nuskii wax ka sii yar 99% inanka imtixaanadiisii keenay hal point baa ka dhiman pointkaa haddii uu keeni waayo wuxuu aan u aragnaa inuu yahay qof aan lagu aamini karin qof xanuunsanaya oo meele ay xanuunayso dhakhtaradaas waxaan soo saarnaa waxaanu qaadanaa 45 arday waxa weeyaan waa goob ay tahay in lagu soo hirto ardayda dhallinyarada waanu dhiiri gelinaynaa waxa weeyaan jaamacaduhu waxa weeyaan dalka horumarkiisa waa xuduudda sidii horeba cid waliba u sheegtay jaamacaduhu ay u wada sheegeen waay waqtigoo inagu soo gabaabsi insha allah waxaanu samayn doonaa qaybta dambe intaynaan ku soo noqon maxaa xala oo aynu ku soo koobi goonno oo ku soo gebagabayn doonno ubuucdeeda innagoo oo qaran wada jira ah
mushkiladaha jira sidee looga dhex qaadi karaa shaqa abuurka amba shaqa la'aanta dowladda maxaynu talo u soo jeedinaynaa iminka inaga dhiman dowladdu lafteedu maxay jaamacadaha u soo jeedinaysaa waynu kusoo gunaanadi doonaa iminka waxaan idinku soo wareejin doonaa mikrofoonka idinka qof kastaaba su-aashiisa waa u xor sida inugu macquulsan ee aqooni ku jirtana uu weydiin karaa jaamacad gaar uu weydiin karaa jaamacadahoo kale ayuu wada dhex dhigi karaa dowladda ayuu weydiin karaa oo agaasimihii shaqa abuurka ee wasaaradda shaqagelintu markaa qaybta labaad amba seshanka labaad ee doodeenna ayaynu gudbi doonaa qofku furtuu taagi doonaa institutionku ka socday magaciisa oo saddexna uu sheegi doonaa dhammaantiina waad ka wada qayb qaadan doontaa magacayga waa nadre maxamed daawud waxaan ka socdaa jaamacadda new generation agaasimahan aanu su-aal weydiinaya su-aashayduna waxay tahay iminka dhalinyaro badan baa waddanka jaamacadaha ka soo baxda oo markay idinka shaqa ay idii yimaadaan ay cv idii keensadaan maxaad ugu xidhaan qabiil amba aad u siisaan shaqada qof kale oo ah inaanu shaqadan aqoon maxaad u sii leedihiin dhalinyaradan u soo baxaysa waddankooga eeda qabyaalada uga shaqaysa waddanka sharciguna ma dhigayo in qabyaalad wax lagu siiyo وخالي معلم عمر waxaa ka socda ururka dhalinyarada wakiil su'aashaan weydiinaya waxaan weydiinayaa mas'uuliyiinta jaamacadaha ka socda inta ugu badan markaad wadeen waxaad sheegayseen inaad soo saartaan shaqaale kumaan arkayn hal jaamacad oo sheegaysa inay soo saarto hal abuurayaal hal abuurayaashu waxay samayn karaan inay shaqaalayaal laftirkoodii sameeyaan markaa ma la odhan karaa jaamacadihiinni waxaa ka dhiman inay buuxiyaan kaalintii hal abuurka bulshada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بدو ما سنتي جامعة هي جاسمها تيفيقة قرنكا هي جاسمها إشارة الشقة قلينتها كسر قيبة الشقة لو سؤال جاسمها سؤال ما ويدين لها جامعة سؤال ما ويدين لها جامعة سؤال ما ويديني وحويا جامعة سؤال ما لان ما الله ورن كرا واحد أنا يعون دقالة مدنا يعني أنا أرتدي الشقة بورصة بيان سؤال شو في رسالة جاسمها وحويدين لها بل جاسمها واحد نوشكتها labadii kun istixraatankii tan afraatan kala gaadhin labada kun istixraatankii inteeba dhalinyar ah oo wasaaradda arrimaha bulshada shaqo u samaysa tira ahaan inteeba la eegaya magacaygu waa khadar muuse jaamacadda new generation baan anu laba su-aalood baan weydiinayaa midna agaasimaha weydiinaya midna waxaan weydiinayaa jaamacadda hargeysa xaajiga ka socda jaamacadda hargeysa wuxuu nooga sheegay inay tahay public university ama jaamacad qaranku leeyahay waxaynu ognahay jaamacadaha kale inaanay waxba kaga duwanayn xagga bareyska weliba specific inay ka qaalisan tahay marka maadaamay ka qaalisan tahay sababtu uu noo leeyahay waxa weeyaan waana public university sidoo kale jaamacadaha kalena way ka horeysaa taa inuu inoo sheego agaasimahan waxaan weydiinayaa inay la socdaan ardayda ama generationka joblaska ee jooga maxaan ku idhahdaa magaalada hargeysa ama gobolladaba sidoo kale inuu noo sheego 2022 marka laga soo bilaabo percentage ahaan dadkii shaqaaleysiin waa intee laakiin inta joblaska ay waa intee magacaygu waa Yaan Axmed Roble waxaan ka socdaa jaamacadda Girls University oo ah jaamacadda barefadka ee Somaliland ugu weyn soo saarta ardayda ugu badan uguna aqoonta badan intaan ka bacdi laba su'aalood baan qabaa midna waxaan weydiinayaa xaajiga ka socda jaamacadda Hargeysa midna waxaan weydiinayaa agaasimaha shaqagelinta sanad kasta waxaa ka soo baxa jaamacadaha dalka arday aad iyo aad u fara badan maadaama ay ardayda aadka u faraha badan leh ay ka shaqeeyaan saynu ogsoonahay ay ka soo baxaan saynu ogsoonahay inta shaqeysaa waxay ka noqonaysaa 10% hadda ugu badato maadaama ay saa tahay haddana 10%ga shaqeeya waxaa lagu xidhaa caaqilkiisa ama reerkiisa maxaa dowladda maadaama aad u qaabilsan tahay shaqagelinta uga meel yaala in ardayda la weydiin aan dib loo weydiinin caaqilkiisa ama reerkiisa se siyaasadda ma ku jirtaa in ardayda la weydiiyo dadka soo shaqo tagay in la weydiiyo jaamacadda ka soo bixin maamulkeedii lagala soo tashado oo halkii caaqilka lagu bedelo jaamacaddii uu ardu ka soo baxay mid waa taas ta kaleeto waxaan weydiinayaa xaajiga ka socday jaamacadda Hargeysa wuxuu aad ugu celceliyay jaamacadda Hargeysa waa jaamacaddii dadku wada lahaayeen jaamacadahan kale maadaama ay ka soo wada baxeen iyagiyo taasba arday muwaadiniina oo dalka u dhashay maxay tahay sababta iyaga keligoo siisay ardayda jaamacaddaas u siisay
oo jaamacadaha kale ay kaga duwan tahay maadaama oo wuxuuba dalkii ku jiraan liisankiina ay ka haystaan wasaaradihii loogu talagalay iyo institutionadii ay quseeyeen aad iyo aad baa umahadsantiin magacay waa cabdisalaam maxamed ibraahin dhigta jaamacadda University of Golis qaybta culumta dhaqaalaha iyo horumarinta laba su'aalood weeyaan mid waa su'aal midna waa tala soo jeedin ku socota dowladdeena Somaliland oo nagu joogo agaasimaha shaqalinta koobaadaan ku horeeyo Professor Axmed dan weydiinayaa oo jaamacadda Hargeysa uu ka socdaa Professor Axmed horta marka dee jaamacadaha dalka loo eegayo dee si guud loo qiimeynayo jaamacadda ugu fac weyn baatiin amba talabaad baan odhan karnaa marka idinka ma idin qorshaysay dhalinyaro amba sanadkiiba soo saarta dad cayiman tiro cayiman oo la yiraahdo sanadkaas weynin 200 oo qof shaqo gelinaa 300 oo qof shaqo gelinaa su'aasheedu taa talabaadna waa tala soo jeedin ah dhanka wasaaradda shaqalinta agaasime taladeedu maanta waxa weeyaan anu maanta haddaan barto culumta dhaqaalaha iyo horumarinteeda badanka xoogga waxaan saarnaa researchadka iyo waxa waddanka ka qabiya taladeedu waxay tahay in la sameeyo group researchka sameeya oo jaamacad walba ka socda oo si hadhow talo ay ugu dhib yaraato wasaaradda shaqalinta telekoobka ay wadaan waad mahadsantihiin magacaygu waa cabdirasaaq maxamed raabi waxaa ka socdaa new generation waxaan weydiinayaa macalinkaa ka socdaa jaamacadda hargeysa waxaan soo saarnaa waxaa tiri arday badan oo tayo leh marka dadkii baan isku mid hayn shanteena afarood saynu siinayn bay u siinayn marka dadka danyartaa kolley dadku dee iskumada jiraan oo dadka qaar wax jira lacagii helaya marka dadka danyartaa maxay idinka qorshaysan maadaama jaamacadaha kale ay sameeyaan sida imika arday jaamacadda new generation oo kale waxay u samaysaa ardayga aan heli karin half scholar bay u samaysaa laakiin hargeysa maxaa uga meel yaala inay dadka aan waxba haysan oo kale tusaale ahaan ardayga dadaalay oo kale ay wax uga qabato magacaygu waa xuseen yuusuf caabi waxaa ka socda jaamacadda new generation waxaan ahay second degree hadda waxaan ka wadaa international relations and global studies su-aasheeda waxaan weydiinayaa waxaanan ahay shaqaale dowladeed oo ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa kaloon xogaya ka ahay ururka dhalinyarada ee mideeye su-aasheedu waxay tahay labaan u kala qaadayaayo su-aal waxaan weydiinaya labada mas-uul ee uga socda ama mas-uulka uga socda dowladda oo ay tahay ministry labor and social affairska iyo haddii ay jiraan ministry trade and investmentka labadaa wasaaradood ma ka qayb qaateen ama strain ma ku sameeyeen si unemployment degrading loo sameeyo shaqalahaanta loo dhimo in ay runtii dhalinyarada inay kula xisaabtamaan multinationalka wax loo yaqaano ama shirkadaha suuqa ku tartamaya ama ha noqdaan private sectorka ama government sectorka baan iska wada garanaa sida lagu shaqaaleysiiyo qofka oo chief pieces iyo howlo badan buu maraa laakiin private sectorka ma ku cadaadiyaan in dadku contesting ay sameeyaan oo laga qaado exams iyo howlo badan anigu waxaan ayaa halkan saddex talaan soo jeedinayaa oo jaamacada soo jeedinayaa oo jaamacad kasta aan doonayo inaan soo jeediyo iyo hal su'aal aan weydiinayo agaasimaha shaqo abuurista weydiinayo wasaaradda ka socda talada kuwa soo jeedinaya waxa weeyaan horta waa in la iswaafajiyo suuqa iyo jaamacadu waxay dhigayaan waa in la iswaafajiyo oo la isku eego mar kasta waxay jaamacaddu bixinayso iyo suuqa arrimaha ka jira waayo aad bay u kala duwan yihiin ama difference weyn su-aasha labaadan talada lama soo jeedinaya waxay tahay ardayga waa in la baro skills oo xirfad la baro xirfaddu mar kasta waxay ka wacan tahay theory in ardayga la baro ama in ardayga theory loo soo jeediyo waa ka wacan tahay waayo xirfadu maanta wax adduunka hormaray ka mid tahay oo qofkii isagoo xirfad aqoon ayuu suuqa soo gelaya suuqina xirfad looga baahan yahay taasina waxay caqabad ku noqonaysaa qofkii inuu jobless noqdo ama qofkii inuu shaqo way noqonaysaa ta kale aan u soo jeedin jaacada waxa weeyaan waa inay furaan qayb ka mid a jaacadda lagu soo kordhiyo oo farsamada gacanta waayo farsamada gacanta wax badan bay ka tartaa qofka inuu maanta shaqo abuurto oo hadduu qofku shaqo waayo isaga laftigiisa ayaa shaqo abuuran karaa meelo kale uu shaqayn karaa laakiin waxay wayar yihiin oo maanta ma lihiin warshado waaweyn xaqiiqadu iskala hadlaynaa oo maanta ma lihiin ganacsiyaduna wayar yihiin dadka kale ka shaqeynaya ayaa waxaan ku dhahdaa ku badan sidaa daraadteed kaasina waxay naga caawin kartaa inaynu iyana aynu daxgeeda isku dayno su-aasha haddaan weydiiyo agaasimaha su-aasha waxay tahay maadaama aan nahay arday jaamacadda dhigta oo imika welibana de ku cusub waxbarashadii oo dhiganaya jaamacadda maxaana idinkaynii qorshaysan welibana maynila tahay kuwii anaga naga horeeyaba dee maanta cabanayaan anagana maxaad qorshaad naga leedihiin maadaama tabcan aan waqti aan bixinayno aan wax baranayno de horta aqoonba aqoon kama sarayso qofna de aqoontiisa isagunbaa og si kastay ahaataba waxaan
agaasimaha anaguna aan leenahay dameel waxaa noo dhiga si aan anaguna aan hertoole aan ku anfacno dalkayaga su-aashayda waxaan weydiinayaa mas-uuliyiinta waxaad sheegteen inaad shaqo abuur samaysaan ardayda soo saartaan sida horena aad u sheegteen waxaa ka jirta dalka inaad shaqo la-aan ama barnaamijku daaran yahay maxay tahay qorshayaasha aad u dejiseen inaad kaga bedeli kartaan shaqo la-aanta baahsan agaasime maanta saynu ka war hayno farsamadii gacanta ee dalka waxaa la wareega waa jaanib ay ugu horeeyaan bangaladesh xaqiiq la wada ogyahay tusaalahaan usoo qaato dhismihii maanta hargeysada aan arkayno waxaa bilicdaa u yeelay waa jaaniib inooga yimid waddamo kale sababtuna ay tahay xirfad ayna dheer yihiin amaba ayna bulshadeeni garanay inay iyagoo aqoon u leeyihiin ka wasaarad ahaan siyaasad ma ka dejiseen in tareeninadaas oo kale inagoo aan ajaaniibtiina waayo xuquuq bay dalkii ku leeyihiin iyaguba sax bilicdii waddankan ay qurxinayaan sababta haddaynu odhanno maanta ajaaniibtii waddanka laga saaro de aqoontii aynu ku dhisan lahayn ma lihin xaqiiqda jirta se siyaasad ma idinka taallaa arrintaa sidii aad u yarayn lahaydeen aynu ku soo noqonno barnaamijkeena iyo qaybta jawaabaha su-aalaha ugu badan waxay ku dhacayeen agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqogelinta iyo brofesor axmed qoolcaddo isaguna jaamacadda hargeysa ka socda haddii aan si guud maro u maro agaasimaha ayaynu ku horrayn doonaa agaasimaha su-aalihiisa waxaa ugu muhiimsanayd oo aynu xusuusan doonaa bal kaalinta ay wasaaraddu ugu jirto shaqogelintu qaranka xagga shaqaalaysiinta walow ay jiraan laba hay-adood oo kala duwan midna ay shaqogelinta tay wasaaradda midna hay-adda shaqaalaha tay mandate kala duwanna ay leeyihiin haddana maadaama xukuumaddu isagu matelayo xog badanna uu hayo intii uu ka jawaabi karo waxa kow ka ahayd habka qabyaaladda oo ay inantii ugu horraysay sheegtay oo ay tidhi dowladdu marka la shaqaalaynayo si qabyaaladaysan ayay dadka u shaqaalaysiisaa waxaa kaloo ku xigtay su-aal uu inankaasi raaciyo uu leeyahay caaqilkaa la weydiiyaa taasoo kalena waa qodob kale innagu maadaamanu wax wada saxanno su-aalahana sidooda aynu uga jawaabanno waxa kale uu ku darayo agaasimaha shaqogelintuna isagaa ku dari doona siyaasadahoo kale waa la weydiiyey maxaa uga yaallaa ardaydan ma ku xisaabtamaan nambarka soo baxaya inay wax u sii dayadayaan oo weeleeyaan agaasimuhu si fiican buu uga jawaabi doonaa isagoo soo koobaya uga boganaya qaybta kalena waxaanu gudbin doonaa brofesorka iyo su-aalaha kale jaamacadaha kale khuseeyana waynu soo gudbi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم aad buu mahadsan yahay agaasimaha telefishinka qaranku iyo ardayda runtii su-aalaha qiimaha badan ina weydiiyey waxaan doonaynaa inaan wax wada saxno marka in wax la isweydiiyo oo qofku su-aashan ka guuxaysa ee maankiisa ku jirta uu weydiiyo cidda markaa uu jaanis u helayo xaq buu leeyahay in looga jawaabo lahagana xaq buu leeyahay marka waynu inoo furantay horta madashu su-aalaha runtii dhowr su-aalood oo kala duwan oo qaybtooda aan moodid inay isku mid yihiin baa lay weydiiyey ka maxamed ahaan su-aasha ugu weyneed ugu horreysa waxay ahayd shaqada dawladdu bixiso ma loo siman yahay mise looma sinna runtii markaan dawladda ka hadlayno dawladdu waxay leedahay hay-ad shaqaale oo hay-adda shaqaalaha dawladda ah una qaabilsan waddanka dhammaan wixii shaqaale dawladeed ee la qorayo ee la qaadanayo ee dawladdu markaa u baahan tahay cudud shaqaale inay hay-adda shaqaalaha waddankeenna soo maraan iyaduna markaa ay soo kala saarto wasaaradii dalkan ay u qaybiso runtii hay-adda shaqaaluhu tayeyn badan bay samaysay xagga shaqaalanimada dawladda ah waynu wada ogsoonnahay dadaalada wadaan iyo siday fursadda hadba markaa taallaa ay ugu bandhigaan dhallinyarta waddanka looguna tartamo dhinacyada kala duwan ee ugu dambaysay tii macallimiinta dalka runtii oo si daahfuran dhammaan gobollada dalka oo dhan looga tartamay ciddii markaa ilaahay u qoray calaf ku lahaan ay soo baxday dadaalada kale dawladdu samaysay ee ku yaraynayso shaqala-aantan waxaa ka mid ahayd runtii shaqo qaran oo dee dhallinyarta fursad fiican siisay dhallinyartii jaamacadaha ka soo baxday oo somalilan oo dhanna wada gaadhay oo dhallinyar badanna ka faa'iidaysatay ayna yihiin dhallinyarta maanta wasaaradaha kala duwan ee dalka ama hay-adaha madax bannaan ee dalka ka shaqaysa dhinaca kale ka wasaarad ahaan marka wasaaraddu dadaalada iyadoo iyana dhinaceeda ka wada waxay samaysay xafiis imtixaanaadka ah oo runtii xafiiskaasi uu yahay xafiiska qura ee mar kasta la socda ama ka qayb gala dhammaan wixii imtixaanaada haddii ahaan lahayna qaadayaan hay-adaha caalamiga ah haddii qaadayaan hay-adaha maxalliga ah ee waddankeenna jooga si daahfuran wasaaradduna ay ula socoto bosishankan markaa lasoo xaysiiyey si daahfuran oo sinaan ah oo aqooni ku dhahantahay ma loogu tartamay riboodkeedana ay wasaaraddu si sanadla markaa
ay u soo saarto taasi wataa marka dowladdu labadaa dhinac bay samaysaa dadaalada kale ee wasaaraddu samaysa wax ka mid ah inay si sanadlaa u qabato wax loo yaqaano national job fair ama carwada shaqo abuurka dalka oo labadii sano ugu dambeeyey laga qabtay gobollada gaar ahaan gobolka togdheer ee burco iyo gobolka awdal magaalo madaxdiisa boorame runtii carwadaas oo ah madal ay ku kulmaan loo shaqeeyaha waddanka iyo shaqadoonka waddanka markaan loo shaqeeyaha leenahay waxa weeye waa shaqo bixiyaha aanu xoogga saarno markaa dhinaca bareefad sektarka haddii baananka ahaan lahayd haddii ahaan lahayd sharaa'iga waaweyn ee waddankeenu leeyahay 40 kambani ama 50 kambani oo bangiyadii iyo kambaniyadii kale waddanka joogayba aan isugu keenayno iyo kasoo qaybgalayaasha oo ah shaqadoonka oo dhallinyarta jaamacadaha ka soo baxaya madashaas oo ah madal furan oo wasaaraddu loo shaqeeyaha markay keento iyo shaqadoonka is hor fadhiisiiso kambani kastana fursadaha uu hayo marka uu soo bandhigo hadday tahay shaqo carbin iyo hadday tahay waxa loo yaqaano shaqaalaysiin bangiyaduna investmentnada ay bixiyaan ay ku soo bandhigaan sidoo kale hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah shaqo abuurka ama investmentka ay dhallinyarta u sameeyaan ay ku soo bandhigaan dhallinyartu marka iyagoo diyaarsan oo wasaaraddu ay wacyigelin badan sii samaysay oo ay shaacisay iyagoo siifiyadoodii sitay yimaadaan madasha toos marka aan isugu xidhno loo shaqeeyey shaqadoonkii ay ula kulmaan fursadaha yaallay u weydiiyaan ay u xeraystaan qof kasta iyo calafkii marka ama halkaa uu ka qaado runtii dadaaladaa wax ka dhashay marka in dhallinyar badan ay fursado ka heleen kala duwan haddii ahaan lahayd dhallinyar shaqaalenimo u tartantay waxaan xasuustaa burco markaan ku qabanaynay job fairka 2022 kambaniyo waaweyn oo waddankaabaa ka soo qayb galay shirkaddan haddaan ka soo qaato soltec oo kale markaa oo cusbayd oo waddanka markaa shirkadihii markaa bilaabaya ah arrimaha teknolojiyadda oo markaa u baahnayd shaqaale inay u qaadato runtii waxay ka faa'iidaysatay carwada oo gobolladoo dhan laysaga yimi oo ay dhallinyar marka ay ku tababaratay hadhowna ay shaqaale ka dhigatay dhammaan gobollada dalka oo dhan ay u qaybisay marka fursadahaasoo dhan waxay beddeleen in ay noqoto madal daahfuran wasaaradduna ku dhiirato inay si sanadlaa u qabato insha allah sanadkana waxaan rajaynaynaa inaan ku qabanno hargeysa oo ah caasimadda dalkeenna su-aasha kale ah farsamada gacanta waxaanu ognahay wasaaradda waxbarashada gacanta ku haysa hase aatee dowladahaan inagoo wada matalaynaa farsamada gacantu maanta waa xirfadaha ugu waaweyn ee waddankeennu u baahan yahay in la barto weliba dhallinyarta jaamacadaha markaan kormeerka ku samaynayno suuqa shaqada ama aanu la kulmayno daneeyaasha arrimaha shaqo abuurka gaar ahaan farsamada gacanta waxay xoogga saaraan oo maanta diyaarad arkaysid in iskuulladii farsamada gacanta soo gelayaan dhallinyartii jaamacadaha ka soo baxday ee kulliyadaha kala duwan soo bartay markay suuqii shaqada eegeen inay farsamadii gacantana ku darsadaan taasi waxay keentay marka in qofku ku dhiirado inuu xirfad u gaara u leeyahay waa run ajnabi badan baa waddankeena ka shaqeeya oo maanta haddii aan lahayd decorationka haddii aan lahayd plumbingka haddii aan lahayd waxyaabahan qurxinaya dhismayaashan oo dhan waxaynu kaga gudbi karnaa marka ajnabiga aynu kaga maarmi karnaa in dhallinyarta waddanka ee jaamacadaha ka soo baxday ama dhallinyarta collegeska kala duwan ka soo baxday in farsamada gacanta xoogga la wada saaro si aynu u gaadhno isku filnaansho aynu uga maaranno qofka dibadda inooga imanaya taa beddelkeeda wasaaraddu waxay ku dadaashay qofka ajnabiga waddanka imanaya marka ee shaqadoonka ah wasaaraddu waxay bixisaa waxa loo yaqaana waak birmad ama fiise shaqay bixisaa oo qofku waddanka markuu shaqo u soo raadsanayo marka fursaddan uu qofkani soo raadsanayo haddii qof muwaadina qaban karo marka qof muwaadina oo xirfaddaale uu joogo qofkaa muwaadinkaabaa mudnaanta mar kale haddii aanu muwaadinku marka xirfaddaa lahayna in qofka ajnabiga inoo imanaya inuu ka faa'iidaysano xirfaddiisa lagu laro qof marka xirfaddii kala hadhaa si aynu inagu markaa isku filnaansho u gaadhno qofkii ajnabigana waddankeennii uga baxo oo inagu fursaddii marka aynu isugu celceshanno marka dadaaladaas oo dhan baa socda siyaasaddii farsamada gacantana wasaaradda waxbarashada ayaa gacanta ku haysa ka wasaarad ahaan waxaa nooga meel yaallaa dhallinyarta soo baxaysa waddanka ee xoogga ah ee jaamacadaha ka soo baxaysa iyo dhallinyarta jaamacadaha ku jirta markaa doonaysaba inay sii aragto nayaayiro qofka markuu jaamacad ku jiro runtii ama markaa uu dhammaynayo jaamacadda oo marka culayska ugu badani saaran yahay ama fikirka ugu badan uu saaran yahay uu isleeyahay suuqa shaqada maxaa kaaga horreeya marka inaynu u wada diyaarino weelkii marka uu qofkani kusoo dhiiran lahaa
si niyad same ah marka waxbarashadiisa ku qaadan lahaa taa beddelkeeda in xarumo centers loo aasaaso dhallinyarta dhammaan gobollada ah hadda gabilay wasaaraddu way ka furtay hargeysa iminka next week insha allah center weyn baa wasaaradda agtada laga furayo dhallinyarta jaamacadaha oo dhan markay qalin jebinayaan waxyaaba short courseska ama koorsooyinka kala duwan ama soft skillska lagu baro si aan u helno dhallinyar diyaarsan oo suuqa shaqada marka la qabsata waxa loo yaqaan shaqo carbinta marka oo dhallinyarta jaamacaduhu qaybtooda aanay fahansanayn qofka carbis shaqo markuu galo ama kambani uu tago ama baananka waddanka kala duwan oo carbis shaqo u doonto wuxuu ka helayaa fursad kow wuxuu baranayaa horta shaqadani maxay tahay wuxuu helayaa khibrad aqoontii u bartay oo practical buu helayaa wuxuu baranayaa dadyow kala duwan ama networking buu samaysanayaa fursadda markaa meesha uu joogo carbis shaqo kaga jirana mudnaanta koowaad siyaasadda waxay dhigaysaa shaqo carbinta heerka qaran inuu mudnaanta koowaad isagu leeyahay jaamacadda hargeysa oo hordhac badan aad ka bixisay aawadeed waxyaabaha aan ku xusuustay in su'aalaha lagu weydiiyey waxaa ka mid ah jaamacadda hargeysa xagga qiimaha oo kale waxaad adigu hadalkaaga ku sheegtay buu ku yidhi ninkii su'aasha ku weydiinaya inay jaamacad dadweyne tahay amba ummaddu leedahay haddana meelaha qaar inaad kaba qaalisan tihiin waa su'aalaha ayay ka mid tahay qaybta cilmi baadhista oo kale sidaad cilmi baadhista u samaysaan oo kale ayaa iyaduna ka mid ahayd yaad la sheer garaysaan halkeed ku publish garaysaan kuwa ugu waaweyn ee ugu muhiimsanaa kuwaas haddii aan ku xusuusiyey mid iyo laba inta kalena waad ka jawaabi doontaa kulley si koobanna waad uga jawaabi doontaa si ayaguna u fahmaan macnaha iyo nuxurka anigoo soo dhaweynaya su'aalaha mid walba waxaan isku dayayaa inaan si kooban uga jawaabo su-aasha ugu horeysa jaamacaddu waa public haddana waa qaali haddana maxaan ku dhahdaayey maxaa waxa weeyaan jaamacaddu public oo qura maaha waa the only national university waa jaamacadda qaranka jumhuuriyadda somaliland waxaa ka madaxa madaxweynaha qaranka ee markaa kursiga ku fadhiya hadba kii shicibku doorto ee mas-uuliyadda haya ayaa ka madaxa taqiimaha waxaa la yidhi fardo laysu hayo maxaa la ysaga faanin jaamacadda ugu qaalisanadka medicinka waxaan u malaynayaa $150 beer maxaan ku dhahdaay semester waxaana kalifaysaa waxaa la barayo iyo macallinka wax u dhigaya iyo cidda loo keenayo jaamacaddu waxay ku tallaabsatay ugu yaraan 7 PhD positions oo ay ku guulaysteen dhammaan dhallinyaro reer somaliland kuwii ugu horreeyena hadda ay soo graduate garoobeen oo jaamacaddu ay fundingkooda qabtay ilaa maalintii ay soo graduate garoobayaan qaar 7 sano ay ku qaadatay qaar 5 sano qaar badanna imika waa candidates marka PhD holders waa very expensive si aad u soo saarto waxaana loo socdaa jaamacadda hargeysa in shahaadada ugu sarreysa ee doctorate-ka lagu qaato cilmi baadhistu imika inta ka socotaa waa la sameeyey dadka aqoonta gaarka ah leh ilaa doctorate-ka socda ayaa mas-uul ka ah waxa weeyaan waa departmentan oo cusub ilaa 25 topic bay imika qalayaan oo cilmi baadhistii ku wadaan oo runtii ay soo saari doonaan qaraaradii iyo publicationskoodii iyo wixii oo dhamme ay soo baxayaan caafimaadkaa ku jira sida loo habeeyo ee jaamacad marka la dhisayo national maxaan ku dhahdaa 5-year plan loogu sameeyo taa researchkana waan ka hadlay taa low incomekana waan ka hadlay shaqogelintana waan ka hadlay waa fair waa interview iyo inaad qaadato imtixaan saane ubucdi inooga baahin waxaanu ku soo gabagabayn doonaa guntiya gabagabada ujeeddadeennu halkan u nimid waxaan weydiin doonaa 2 su'aalood oo midkiiba aan 1 daqiiqo u ogolay jaamacad kastaaba markuu timku ka dhacana aan ka joojin doono haddii ilaahay ka dhigo xagga timekana waan manage garayn doonaa su-aasheeda koowaad waxay odhan doontaa dhammaan jaamacadahooga inagoon dhaliilayno ina hor fadhiyaan waxaa ka wada maqan waxa loo yaqaano technical institutionska amba dugsiyada farsamada gacanta oo aynu arkayna inay fursad hal abuur amba shaqo noqon karto waxaan ku horreysiin doonaa jaamacadda gulis oo aan leeyahay markaynu xaqaa'iqa ka hadalno intii hore waynu soo hadalnay maxaa qodobka in dugsi farsamo gacmeed la sameeyo amba siduu doonaha noqdee wax farsamo gacmeed oo qofku ku shaqo tegi karo maxaad inta badan oriented ugu noqon weydeen instead amba inta aad ku mashquulayseen inaad koorashada kaliya programmada kala bixisaan waaye waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waad mahadsan tahay su-aasha intana ka jawaabin khaalid oo halkaa fadhiyo wakiil ka socday baa su-aal guudna weydiiyey oo ahayd jaamacadahoo dhani waxay sheegayeen inay shaqaalo soo saaraan laakiin hadalkaygu duubaya haddii lagu noqdo 3-4 jeer ayaan ku celceliyey oo nidhi shaqaale in la soo saaro waa loo baahan yahay
oo shaqaaluhu dee wuxuu buuxinayaa kaalin buu buuxinayaa experience buu kasbanayaa laakiin hal abuurka waan ka hadlay oo waxaan idhi jaamacaddu waxay qayb weyn ka qaadataa sidii ardayda ay uga dhisi lahayd inay business iyagu abuuri karayaan fikrado cusub ay keeni karayaan marka waxaan ahay baan umalaynaya jaamacadda keliya ka jawaabtay ee tidhi waxaanu soo saarnaa arday hal abuur inay la yimaadaan businessya sameeyaan isla markaana ay dad shaqaalaysiiyaan inaanu soo saarno ayaanu xoogga saarnaa taa kolley waan ka jawaabay waan filaya ku noqon maayo su-aasha kale haddaan ku noqdo farsamada gacanta runtii dee inta ugu badan skills baan bixinaa ama xirfado kala duwan baan bixinaa xirfadahaasi aad bay muhiim u yihiin in technical schools la helana aad bay u wanaagsan tahay in xirfado gacanta laga qabanaya la helo lagu shaqaystaana way wanaagsan tahay waana la bixinaa qaybo ka mid a tusaale ahaan farsamooyinka aadka u wanaagsan ee loo baahan yahay waxaa ka mid a electrical engineering oo kale ayaa ka mid a oo xirfadaha waqtiga loo baahan yahay ayay ku jirtaa marka way wanaagsan tahay inay jaamacaduhu dhinacii dee farsamadii gacanta xoogga saaraan makaanikadii waxyaabahaas oo dhan ay soo kordhiyaan laakiin sidaan hore u sheegay markaan program furayno aad baan uga fiirsanaa cilmi baadhis baanu samaynaa qalabkii iyo wixii loo baahnaa baan diyaarinaa spacekii ay ardayda u baahnaayeen baan diyaarinaa kadib baa la furaa programkaasi si sahlanna wax la iskagama furo dee lagamana raadiyo uun keliya ta ganacsi laakiin waanu diyaarin doonaa waxaana ka mid tahay waxyaabaha qorshaha noogu jira profesorka ayaynu markaasi haddana mar labaad ku noqon doonaa profesor hal daqiiqo iyo jaamacadda hargeysa waxay shaqa abuurka amba shaqa la'aantan in lagu yarayn karo qorshaha waxa weeyaan annagu priority-gu waxa weeye ardayga ninkii oo majuur oo caqligiisa ku socda oo wax kala garanaya inuu graduate garoobo inuu trainingka loo baahan yahay oo ka qayb qaato oo ku soo baxo dabeetana aanu meelayno oo nalaga soo codsado saasaanu shaqada maxaan ku dhahday shaqaala'aanta ku yarayn karnaa tirada aan soo saarnay annagoo si daacad uga jawaabaynana waan idiin sheegay muddadaa yar waxaan ku soo saarnay 950 qof oo arday oo aan maanta la soo celinayn oo mas-uuliina mukhtaar mid iyo laba waxyaabaha aad leedahay dhibaatadan guud waa lagaga bixi karaa horta niyow waxan waa national issue saan hore u sheegay waxyaabaha laga bixi kara waxaa ka mid a horta in dowlad iyo jaamacado iyo dhammaanba bulshada horta isku kaashato sidii looga bixi lahaa shaqa la'aantan oy kow ka tahay horta in daacad laga noqdo dadkan wax la barayo ee wax soo bartay boosishanada sida ay u helayaan horta in daacad laga noqdo dowlad iyo cid kasta oo horta ku shaqalaba sidoo kale in ardayga institutionka uu ka soo baxayo lagu soo qalabeeyo aqoon marka uu yimaado suuqa shaqada uu ku tartami karo uuna ku ugaadhsan karo ama uu ku hanan karo shaqadii uu raadinayay qodobka saddexaad laga bixi karaa waxa weeyaan ka dowlad ahaan dowladdu inay dejiso policy cad sida agaasimuhuba uu sheegay oo fulinteeda wadata oo daah furan oo cadaalad ah deetana si dhammaystiran ay ugu tartamaan dhammaanba aqoon-yahanku boosishanada shaqo ee soo bannaanaada si hadhow ay u noqoto qofka soo baxay cadaalad ku soo baxa qudwa iyo ku dayasho iyo role model qof kastaaba uu ku daydo uu yidhaahdo hebelba imtixaanba ku soo baxay adna imtixaan ku soo baxo uu yidhaahdo aad iyo aad baa umahadsantii haddaan u yimaado su-aashaasi ama qodobkaasi qodobka koowaad waa halabuurka halabuur jaamacaduhu runaantii waxyaabaha lagu barto waa ka mid entrepreneur skillsku laakiin maxay naga maqan baa muhiimaddu ay tahay muhiimaddu waxa weeyaan ardayda marka loo diro qorshayaal ganacsi inay soo qortaan way soo qortaan laakiin maalgashigii baan jirin weli marka dowladda dadweynaha iyo runaantii cidda ay khusaysa hay-adaha khusaysa inay iska kaashadaan dabeeto sanduuqa horumarinta ee qaranka ee dhallinyartoo kale lacag gooniya loo qoondeeyo lacagtaas ay noqoto lacag dadka halabuurka iyo fikirka ganacsi leh oo layska kaashado oo lacago laysku daro lacagahaasi si gaara laga dhigo lacago loo tartamo oo fikrado ganacsi oo halabuura wax qabanaya lagu qabto qodobka labaad dadka khaasatan dadka goobaha ganacsigaa leh inay la shaqeeyaan jaamacadaha oo runaantii collaboration ay sameeyaan oo ay halka ay runaantii dadaan xirfad lahayn mararka qaar ay shaqaalaysiisanayaan inay jaamacaduhu yimaadaan adduunyada inta badan shirkaduhu waxay tagaan goobaha waxbarashada ardayda halkaasay kasoo shaqaalaysiistaan xiriir fiican bay la sameeyaan qodobkaasna wax badan buu runaantii isaguna uu soo dhoweyn karaa oo dhalinyar badan oo waxbaratay ayaa shaqo ku heli doonta mar hore ayaan ku celiyey weli waynu dareemanaa in number badani uu baranayo waxbarashadii caadiga ahayd laakiin waxbarashadii xirfadda ahayd weli ay yar tahay ka jaamacad ahaana hamigaas iyo hankaas wuu nagu jiraa saan horeba u sheegay waxaan rajaynaya in lahayn la qaban doono waxaa intaasi noogu soo dhammaaday barnaamijkeennii dooda furan ahaa ee ay ka qayb qaadanayeen jaamacadaha dalka qaar ka mid ah
ee aynu ku eegaynay bal shaqa abuurka amba shaqa la'aanta iyo sidii loogu yarayn lahaa iyada oo doorka jaamacadahana laga dhigayo mid aad u sarreeya waxaa barnaamijka marti noogu ahaa jaamacadaha kale ah golis new generation armas iyo jaamacadda hargeysa sidoo kalena waxaa barnaamijka marti noogu ahaa agaasimaha shaqa abuurka ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada dhammaan kasoo qaybgalayaasha ardayda ah ee jaamacadaha ka kala socday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidoo kalena waxaan mahadnaq weyn u soo jeedinayaa howlwadeennada telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo iyagu bilicdan iyo muuqaalkan isla kaashaday islamarkaana qurxintan iyo qaabayntan goobtan aynu ku sugannahay lahaa inoona suurageliyeen inuu muuqaalkan iyo codkanba isla helno aynu si fiican u duubno barxaddaasina inoo habeeyey aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha iyo ardayda kale iyaguna kasoo qaybgalay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu